السلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته. meeshaad imika naga daawanaysaan ama naga maqashaan ama naga dhagaysataan waa channelka Wargal Media. wararka aan idin hayna waxaa ka mid ah magaalada Muqdisho oo lagu soo rogay bandow. Axmed Ducaale Geele Xaaf oo xilka ku wareejiyay Axmed Qorqor. madaxweynaha maamulka Hirshabelle Maxamed Cabdi Waare oo gurigiisa isku karantiilay. wasaaradda caafimaadka Soomaaliya oo qirtay in tirada dadka la ildaran cudurka COVID-19 ay gaartay 25 ruux. ciidanka badda Soomaaliya oo heegan la geliyay si ay uga hortagaan qaadka sharci darrada ah ee Kenya ka yimaado. madaxweyne ku-xigeenka maamulka Jubbaland Maxamuud Sayid Aadan oo lagu wada in uu yimaado magaalada Muqdisho. intaas waxay ahaayeen wararkeena iyo qodobadeena kuwa ugu doorka roon intii aanan u gelin faahfaahinta fadlan daawan ka tagin adigoo aan ka mid noqon saaxiibada Wargal Media channelka adigoo subscribe saaraya like una share gareynaya asxaabtaada haddii aad awoodid. haatanna ku soo dhawaada warkii oo faahfaahsan. dhammaan xubnaha dowlad goboleedka Hirshabelle ayaa la karantiilay kadib markii uu xanuunka coronavirus u geeriyooday mid ka mid ah golaha wasiirada ee maamulkaasi. waxaa magaalada Jowhar isku karantiilay madaxweynaha Hirshabelle Maxamed Cabdi Waare iyo golihiisa dowladda kuwaasoo dhammaantood karantiil ku jiri doona muddo 14 maalmood ah. wasiir Khaliif Muumin Tuuxow oo sidoo kale ahaa xildhibaan ka tirsan baarlamaanka ayaa ku geeriyooday isbitaalka Martini ee magaalada Muqdisho. madaxweyne Waare ayaa qoraal uu soo dhigay bartiisa Twitter-ka ku yiri ilaahay baan xanuunsanin laakiin anigu waan fiicanahay. waxaan doorbiday inaan keligay iskarantiilo ilaa isbuucii la soo dhaafay anigoo ishubinaya sidoo kalena tusaale u noqonaya dadkayga. weli lama soo gudbinin xubin kale oo ka tirsan maamulka oo la xanuunsaday ama la xanuunsan imika coronavirus. dowladda Soomaaliya oo bandow ku soo rogaysa magaalada Muqdisho kadib markii ay korodhay tirada dadka uu soo ridanayo cudurka aan dawada lahayn COVID-19 ee coronavirus. waxay dowladdu sheegtay in bandowgaas ay dhaqan gelinayso laga bilaabo 15 Abriil 8 fiidnimo ilaa 5 subaxnimo. waxayna dowladdu ku sababaysay in Muqdisho tahay magaalada ugu bulsho badan ee dalka oo dhan. wuxuu bandowga saameynayaa isu socodka gaadiidka iyo dadka marka laga reebo dukaamada cuntada qalalan laga iibsado. isla wararka Soomaaliya ku guda jirnaa daawadayaal Dr. Fawziyo wasiirka wasaaradda caafimaadka oo sheegtay in tirada dadka uu soo ritay cudurka COVID-19 ee coronavirus ay gaadhay 25 ruux. sidoo kale wasiirka Dr. Fawziyo waxay ku boorisay bulshada Soomaaliyeed ku dadaalka nadaafadda iyo sidoo kale ku nagaashaha guryaha. waxaan joognaa gabagabadii iyo gunaanadka barnaamijkeena fadlan daawade waxaan ku sii xasuusinayaa inaadan ka tagin channelka adigoon subscribe saarin videodana like saarin. haddii aad nala soo gaartay daqiiqadahan waad ku mahadsan tahay daawadaheena sharafta leh iyo saaxiibkeena Wargal Media waa wehelka bulshada adigana walaal ka dhigo. sidaas iyo nabadgelyo. wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.